Kaneecada badanaa waxay jeceshahay mugdiga iyo kuleylka. Sidee uga falcelinaa markii dadka dhibaato noo geystaan? Assalaamu calaykum. Waa saaxiibka Shaahid Biisani. Muddo weyn oo kala maqneen waa ka raaligelinaya. Waxaan rabaa fikir yariis inaan kula wadaago. Fikirkaasina wuxuu ku saleysan yahay sidee uga falcelinaa markii dadka dhibaato noo geystaan ama nacayaan ama xumaata ay nugula dhaqmaan. Fikirkan waxaan ku saleyn doonaa tusaale aad u yar. Tusaalahaas wuxuu yahay ma u fiirsatay kaneecada. Kaneecada badanaa waxay jeceshahay mugdiga iyo kuleylka. mugdi iyo kuleel haddii ay hesho dhawaqeeda kama seexan kartid. haddii aad maanta qol soo gashid qolkaasi aad damacdid inaad seexatid, haddii hal kaneeca ay ku jirto qolkaasina uu mugdi yahay kuleelna yahay, way adkaanaysaa si hurdo ay kaaga soo dhacdo. sababtuna waxay tahay dhagaha ayay kaaga qalinaysaa. haddaad damacdid inaad ka falcelisid oo aad gacantaada saan tiraadid, dabeel ayay dareemaysaa, dhanka kale ayay u wareegaysaa. waayo falcelinta aad ka falcelinaysid waxa ay dareemaysaa inaad la dagaaltamaysid, kadibna waxa ay ku dadaalaysaa inay ku sii dhibaatayso oo dhegta kale ayay u gudbaysaa. oo mararka qaar waxaad dareemaysaa inay dhegtan u soo wareegto ay kaaga qayliso. haddii qolkaasi uu qol qabow ahaa lahaa, waxaa laga yaabaa inaad dareenteen kaneecadaasi dhawaqeeda. waayo badanaa kaneecadu qolku markuu qabow yahay ma qayliso, tartiib dushaada soo fuulaysa, way ku qaninaysaa. haddii aad soo jeedid waxaa laga yaabaa gacanta inaad ku dhufatid. haddii aad soo jeedin oo aad markaasi hurdo ay kula tagtay oo aad jiiftid, waxaa laga yaabaa subaxii inaad soo kacdid aad wejiga ka dareentid inay kaneeco kaa qaninta ama gacmaha. sababtana waxay ahayd niyadda maada sii gelin, qolkuna wuu qaboobaa. haddii maanta qof uu ku dhibaataynayo, ku xumeynayo, ku caynayo ama ku daba taagan yahay, ama mararka qaar marka aad aragtid aad xanaaqaysa ama aad dhibsanaysid, taasi waxaa la yiraahdaa falcelin. falcelintaasina way ka helayaan. sida ay kaneecadu uga hesho kuleelka iyo mugdiga, dadka qaar waxa ay ka helaan falcelinta aad ka falcelinaysid dhibaatada ay ku geysanayaan. mararka qaar waad aragtay qof aan leedahay dhibaatadan iga daa, marar badan ayaad ku soo celinaysaa, isla dhibaatadii ayuu kugu soo celinayaa. waxaad is leedahay asiga ay wax ka qaldan yihiin, asiga waxba kama qaldana, ee adigu sida aad uga falcelinaysid xanaaq ah, deganaan la'aanta ayaa dhibaatada sababayso. haddii aad qof degan oo qabow oo nabad ku nool oo nabad raadinaya aad tahay oo aadan u fiirsanaynin qaabka u dhaqmayaan, marka dambe way daalayaan. haddaad u fiirsatid kaneecada, hadday dhiigga ka dharagto, badanaa dadka waxa ay dhahaan dhiigga markay ka dharagto way dhamataabo. qofkani haddaad si degan oo qabow uga falcelisid ama aadan dan ka yeelanin oo danahaaga aad ku mashquulshid, marka dambe waxaa laga yaabaa asigaba inuu isnacabo, noloshiisa u naco. waayo qof buu ku mashquulayay, naftaada ayuu ku mashquulayay, dhegna jalaq waa u sii weyday, kadibna marka dambe asigiiba isnacaya. si kaneecada dhiigga markay ugu dharagta ee u dhimato, waa laga yaabaa naftiisaba inay u liidanto. mar walba niyadda waxa aad ku haysaa, haddii uu qofku dhibaataynayo, ha fiirin dhibaatada ay kugu sameynayaan iyo sida ay u sameynayaan, ee waxa aad fiirisaa sida aad uga falcelinaysid. sida aad uga falcelinaysid hadday tahay si kulul oo xanaaq leh oo caro leh oo aad macnaha haddii qofku aad u dareensiinaysid inaad awood leedahay, waxaa laga yaabaa qofkaani carada aad muujinaysidba inuu awood kasii helayo oo kusii dhibaataynayo. mararka qaar u fiirso, marka lagu dhibaateeyo ama wax xun lagugu sameeyo ama ay arrinku soo gaarto, sidee baan uga falceliyaa? ma deganahay? haddii aad degan tahay oo aad ka falcelin oo aad xoogaa adkaysi samaysid, marka dambe qofku wuu daalayaa. haddii wax walba oo dhan kaaga yimaada aad ka falcelisid, haddii dhankan kaaga yimaadaan dhanka kale usoo wareegayaan, dhankaana kaaga imaanayaan, markaasina waxaa dhacayso inay la wareegaan feejignaantaadii, nabadaadii marka ay la wareegaan, waxaa noqonaysaa qof mar walba oo markuu qofka arkaba, xataa hadduusan waxba ku samaynin, xanaaqa, carooda. taasi sayse u dhicin. mar walba xoog waxaa saartaa inaad degnaanta ku dadaashid. inta mar aad degan tahay waa inta maruu qofku kugu daalayo mar dambe uusan ku dhibaataynaynin. xitaa hadduu ku dhibaateeyo, waxaa dhacaysa inuu asiga naftiisa uu naco marka dambe, haddaadan dheg jalaq u siinin. waa saaxiibka Shaahid Biisani. haddii aad videogan ka heshay, commentiga fikirkaaga igula wadaag. haddii aadan fikir haynin, haddaa ii soo qortid, waa ku farxayaa. asxaabtaada haddaa la wadaagtid, waa wax wanaagsan. haddii aad igu cusub tahay, subscribe ayaan kaa codsanayaa. meel walba aad dunida ka nooshahay, allah kugu xifdiyo. asalaamu calaykum.